بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعد عبد القادر الشافي عشر كم حقوق قادننا وعشر كأني أفراد مايكروسوفت وورد أما جي سوت وحالها لسكوله أبليكيشن هذا سي مايكروسوفت وورد مايكروسوفت إكسل مايكروسوفت باوربوينت يو إكسس كا أنت جي سوت على لسكولها أيقو أوفلاين هني وجرا وكان استعمالنا أسرع أونلاين هني وجرا سدحضا Microsoft Word wuxuu ku fiican yahay sida qoraalada oo kale ama casharada la qorayo Excel kuna wuxuu ku fiican yahay xisaabaadka oo kale PowerPoint-ga asagana iyo waxa lagu soo bandhigaa publisher-kana asagana certificate-yada iyo waxa lagu sameeyaa Access oo kale asagana waa database hadaba Word-ka ayaan weydnay casharkani afraad ayaan qaadanaynaa maanta waa paragraph-yada iyo qoraalkooda iyo si alignment loogu sameeyo casharkii koobaad waxaan ku soo qaadanay hadii aan review yar sameeyno casharkii koowaad waxaan ku soo qaadanay si file-ka loo soo furo application kan Word-ka si loo soo furo iyo inta qaab ee loo soo furo kii labaad waxaan ku soo qaadanay intan font la isku dhaho intan ayaa font la dhahaa intan faraha ayaa laga hagaajiyaa cabirkooda iyo faraha qoraaladooda inta far ee xaggan ku jirta in area tahay Times New Roman inay tahay inay dhamaan xaggan ay ku jiraan fartaada xaggan ka weydana waa soo dejisanaysaa marka Google-ka ka soo dejiso xaggan ay soo gelisaa install ma dhaysan xaggan ay imanayaan xaggana farta cabirkeeda weeyaan intan waxaan u leeyahay waxa la isticmaalaa si bold markii laga dhigay farta la waaweynayo bold waa biidan ayaa la isticmaalaa italic markii la jijiifinayo underline markii hoos la xariiqayo markii la tirtirayo kolkii la jibaariyo hoos iyo korba intan waxa weeyaan kalaradoodii kalarka ayaa loo isticmaalaa eedana capital ayaa loo isticmaalaa kana waxa sentences iyo hoostooda waxa jooga iyo lower cases upper cases capitalizer iyo toggle intaas ayaa ku jira waxaan kale oo soo isticmaalay markii xarafka la weynanayay eega lesson 4 kaas oo kale markaan weynanaya eeda capitalka ayaan ku dhufanaya weynanaya tan eedan smallka weynanaya sidoo kale waxaan isticmaali karaa anoo intaan highlight gareeyo control then close bracket ayaan furaya markaan shaashada noo muuqdo open-tana u yareynaya intaas casharadii hore ay ahayd waxaan kale soo qaadanay markii falta colorkeeda la bedelayo xagan ayaa laga bedelaa waa kan oo kale colorka ay farteeda bedelaya markii background-iga la bedelayana waa tan kaas ayaa la bedelaya wuxuu bedelayaa background-iga farta ay ku fadhida background-iga halka maanta casharkeena waa lesson 4 paragraph ayaan ka hadlaynaa intan ayaan ka hadlaynaa paragraph iyo alignment si loogu sameeyo paragraph markii laga hadlayo alignment left markii la geenayo qoraalka dhinaca bidixda waxaa la qabanayaa control L marka hore waxay la garanaysaa dan control L ayaa taabanaysaa centerka marka geenaysana asagoo highlight ku saaran yahay ayaa control iyo idaysa dan centerka ayuu keenayaa dhexdan ayuu keenayaa farqada dhexdeeda ayuu keenayaa right markan keenayna asagana waa control iyo R justify markan ku sameynayna ee dhinac ka sameeyno taniya laymadan sameeyno waa control iyo J waxaan kaloo isticmaali doonaa line spacing laymada inta u dhaxeeya eega laymadana inta u dhaxeeya qoraalka intiisu jiraan iyo identities kolkii lagu sameeyo asan waxa weeyaan in qoraalka hore loo yargariyo iyo sorting in la habeeyo iyo paragraph shading in lagu sameeyo shadow ama layma dhexda hareerada laga mariyo iyo border hareerada in la geliyo borderka oo kale hadaba qoraalkeenan intan paragraphka waan iska tiraynaa sidii hore ayaan u qoraynaa ama formuladii ay ku qoraynaa equal ayaan leeyahay qoraalka dhamaan aan tira marka hore qoraalka in highlight garanaya in ay hoos joogtay dan inter ayaan leeyahay inter markaan dhaho waxaan korayaan soo yar noqonayaa equal ayaan leeyahay qowski ayaan furayaa ano shift iyo number 9 ha dan waxaan leeyahay 3 markaan dhaho intaas ayaan rabaa inuu ii furo dan intan ayaan ka shaqeynaynaa markaan highlight gareeyo waxaan rabaa inaan control iyo intaasan ku dabaqayaa intaas ayaan isticmaalaynaa control iyo L hadii aan dhaho control iyo L wuxuu keenayaa dhinacan leftiga ayuu keenayaa control iyo L waxa uu dhaqahay leftigaas ayuu keenayaa dhinaca bidixda ayuu keenayaa haddaan centerka rabaan waa control iyo R centerka ayuu keenayaa dhinaca kaas ayuu ka soo dhaweynayaa control iyo E haddaan dhahona wuxuu keenayaa asagana control iyo E wuxuu keenayaa centerka ayuu keenayaa control iyo R right ayuu keenayaa oo midigtaas ayuu keenayaa haddaan rabaa justify inaan ku sameeyo control iyo J ayaan taabanayaa waa justify dhinacan wuu simay dhinacana wuu simay justify ayay noqonaysaa line spacing inta u dhaxayso halkaas ayaan ka dooranaya halkaas ayaan furaya line spacing 1.0 kaas ayaa u yar
justifying haddaan 1.15 ka dhigayana asagana wuu sii kordhayaa haddaan sii kordhiyana asagana ilaa 2 haddaan ka dhiga 2.0 wuu sii kordhayaa asagana hoos ayuu kacayaa 3 haddaan ka dhiga waa ka kolba spacingida intaad u baahan tahay ayaa isticmaalaysaa wankaas ayaan kusoo celinayaa si uu u yaraado haddana waan highlight garaynayaa markaan highlight gareeyo waxaan samaa inaan ka dhigo identities inaan hore u yargeliyo tan waa increase kana waa decrease oo kale weeyaan increase hore ayuu u yargeliyaa oo horeydan ayuu soconayaa qoraalkeeni decrease-na dib ayuu u noqonayaa haddaan u baahanahay lambarka ugu horeeya inaan hore u gelinayna lambarka ugu horeysa hortiisa ayaan mouse ka dhigayaa dan tab ayaan taabanayaa tab dan line ugu horeysa saa u gelaya waa paragraph markii la qorayo kale identities ayaa la sameeyaa weeyaan midka ku xiga waa sorting iyo kale sorting iyo shadow sorting asaga qoraalkaas ayaan ku sameynaynaa namarada shadow markaan rabno asagana highlight garanaya markaan highlight gareeyo shadow qoraalka waxaan yeelay baldiga kaas ayaan furaya halkaas aan furaya then shadow ayaan sameeynaa oo waxa weeyaan had ayaan saaraya then haddii aan u baahanahay inaan border geliyo borderkuna asaguna wuxuu noqonayaa linekaas ayaan furaya dhexaan and all border ayaan leeyahay all border hareerihii ayuu border ka soo geliyay si aan borderka si fiican u aragno shadowga ayaan bedelaya waxaan ka dhigayaa shadowga number khafiif ayaan ka dhigayaa waa ka shadow ayuu geliyay iyo border kaasna waa shadow iyo border midka ku sii waxa weeyaan sortingida asaga nambarada ayaa sorting lagu sameeyaa tusaale ahaan sorting waxaan sameynaynaa bullet iyo sorting iyo numbering bullet waxa weeyaan hada numbers ayaa ku jira nambarada inaan ka tiro ayaan u baahanahay bulletkan ayaan dooranayaa then bulletadaas ayaan saarayaa dhamaantii ayaan saaraya bulletadu ay kala duwan yihiin kana ay saarayaan dhibic ayaan saari karaa dhamaan waa kaas numbers haddaan rabana nambaradan ayaan furayaa intaasoo number ayaa jira nambaradan iyo kuwan qowska leh iyo ABCD da iyadoo yar iyo small ah iyadoo romaan ah dhamaan si way ABCD hadan ka dhigo asiyana kale halka ABCD da la dooranayo haddii aan sortingida ku sameynayno taas ayaan dooranayaa a iyo z waxaa jira descending iyo ascending taas ayaan furayaa waxaan paragraph ayaan dooranayaa then tagastigaas ayaan rabaa in sorting ku sameeyo on eeda ka bilaabo ABC eeda Cabdikaadir ka saayo horeeya Bashiir oo kale hoos ayuu jira waxaan ka dhigayaa eedaas iyo inaan ku soo xijisiyo waxa wuxuu noqonayaa ascending-gidaas ayuu noqonayaa waxa A B C saas ayuu soo xijisiyo haddaan descending ka dhiganayna zerta ayuu soo horeysiinayaa waa kaas eega la markaa zamsamga ayaa kor ka soo maraya descending-gina saas ayuu noqonayaa nambaradan aan ka tiyo kooxana aan bullet u sameeyo si ay quruxsanaato bullet kaasna wuxuu noqonayaa bullet waa nambarada korka weeyaan kaas ayaa la furaya bulletada dhamaan xagga ku jirta intaad ka weydiinta define new bullet ayaa dhaysa ku soo daraysa waxa ku xiga sorting-gina waa habeen waxa jira ascending oo eeda laga soo bilaabo up to z iyo descending oo zerta iyo eeda lagu dameysiinayo kaasna wuxuu noqonayaa sorting numbersna waa nambaradan caadiga intaan highlight gareyno ayaan nambarada ku taxaya nambarada okay hadaan doono romantic ayaan ka dhigayaa okay maanta cashirkan halkaas ayaan ku hakinaynaa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh